halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban kuwa FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internetka ciwaanka iyagu yahay bbcsomali.com. arooryo suuban idilkiin baa khiyaartana dhegaysatay waa jimce 22 Juun saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 7 buura. wararkan idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah midowga Yurub oo maanta dhaqan gelinaya cashuuro uu ku soo rogay badeecadaha Mareykanka, kalluumaysato Soomaaliya oo kalluun u dhoofiyay dalka dibadiisa, wada hadalladii nabadda South Sudan oo lagu hungoobay, cudurka Rift Valley fever oo ka dilaacay Kenya, maamulka ka shirayay xaaladda maxaa ka soo baxay. shirka waxaa ka soo baxay in cudurkii ilaa 70 qof uu saameeyay, dhimashadana weli ay 6 marayso oo kordhismin. 70 qof oo uu saameeyna waa la daaweeyay, xaafadooda ay qaarkood ku noqdeen, qaarna isbitaalada ay weli joogaan. wararkii ciyaarahan iyagana idin hayaa dhegaystayaal. soo saaraha barnaamijku waa Xasan Cali Geelaan oo Axmed Nagaashina waan idinla socodsiinaya. subax wanaagsan saaxiibayaal. waa tahay qodobadaas oo faahfaahsan ah inoo dambeeyaana dhegaystayaal, bal marka hore warkii dunida iyo Xasan Haybe. Xasan, mahadsanid Axmed. waxaa maanta dhaqan galay canshuuro dheeri ah oo midowda Yurub uu saaray qaar ka mid a waxyaabaha looga soo dhoofiya dalka Mareykanka. arrintaas ayaana jawaab u ah canshuuraha dheeriga ee Mareykanku ku soo rogay birta iyo naxaasta. waxyaabaha ay canshuurtan cusub saameynayso waxaa ka mid a mootooyinka, cabitaanka, liinta macaan laga hagaajiyo iyo nooc ka mid a khamriga oo qaali ah. midowda Yurub ayaa sheegay in uu samayn doono wax kasta oo uu awoodo si uu u difaaco danihiisa ganacsi. shirkadda weyn ee dhanka duulimaadyada ee Airbus ayaa sheegtay in howlihii ay ka waday dalka Britain ay halis ku jiraan, sababtuna ay tahay horu socod la-aanta wadaxaajoodka Britain ay uga baxayso midowda Yurub. shirkaddan oo baalasha diyaaradaheeda ku samaysa Britain ayaa sheegtay inay isku dayday sanadkii hore inay boqortooyada Ingiriiska u sharaxdo walaaca ay qabto, balse arrintaasi aysan waxba ka soo kordhin. golaha wasiirada ee dalalka midowda Yurub ayaa ammaanay oo arrin taariikhi ah ku tilmaamay heshiis in badan la sugayey oo la gaadhay, kaas oo ku saabsan in Giriiga laga khafiifiyo deymaha. heshiiskan ayaa kordhinaya wakhtiga Giriiga laga doonayo inuu isaga bixiyo deymaha la siiyo inta uu ku jiro guntigiijiska, iyadoo looga dhigay wixii ka dambeeya sanadka 2030. sidoo kaleete waxaa laga khafiifiyey dulsaarka, waxaana meel loo dhigay lacago loogu talagalay in lagu barigantaalo haddii xaalad degdega ay ku timaado. ninka ugu kurkuroon dadka doorashada madaxweynenimada Turkiga ee axadda dhacaysa kula loolamaya Erdogan ayaa dad badan khudbad ugu jeediyey magaalada Izmir. Muharram Insi ayaa ballan qaaday inuu meesha ka saari doono xaaladda degdega ee dalkaas saaran 2 sano. dalka Mareykanka ayaa xayiraado dhanka dalkugalka saaray mas-uuliyiin ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo, kuwaas oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin dhanka doorashada. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ma aysan shaacinin dadka ay arrintaas ku bartilmaameedsatay, balse waxay sheegtay in arrintaasi ay muujinayso sida ay uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo taageeridda sidii ay u qabsoomi lahayd doorasho hufan. aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka ayaa dib u dhigay codkii uu u qaadi lahaa sharciga cusub ee ku saabsan dadka soo galootiga. arrintaas ayaa timid iyadoo ay sii xoogaysanayso su-aasha ku saabsan goorta dib loo midayn doono caruurta iyo waalidka la kala geeyey intii ay socotay siyaasadda dulqaadyarida ku salaysan ee soo galootiga ee madaxweyne Trump. warkii dunidana waa naga intaas Axmed. mahadsanid Haybe. waa tahay dhegaystayaal, aan ku bilaabay sidii aad warkaba ku maqlayseen. madaxa midowda Yurub Jean-Claude Juncker ayaa sheegay in midowgu ku dhaqaaqi doono tallaabo kasta oo uu uga maarmi waayo inuu ku ilaashado danihiisa ganacsi, isla markaana uu u diyaargaroobayo inuu maanta dhaqan geliyo cashuuro dheeraada oo uu ku soo rogay badeecadaha Mareykanka uga yimaada, taas oo uu kaga falcelinayo midowda Yurub cashuuraha Mareykanku ku soo rogay xadiidka iyo aluminiyumka reer Yurub ay u dhoofiyaan dalkiisa. haddaba Xasan Cali Geele oo soo saaraha barnaamijka ayaa haatan stuudiyaha ila fadhiya wararkaana isha ku hayay. xasanow, sidee wax u jiraan bal haddana oo faahfaahay.
axmedow waxaa muuqata inuu bilowday dagaal dhanka ganacsiga ah oo u dhexeeya wadamada ugu dhaqaalaha roon caalamka sida Mareykanka, Shiinaha iyo wadamada reer Yurub. Mareykanka horey ayuu Shiinaha ugu soo rogay canshuur alaabaha laga soo dhoofiyo. Shiinuhuna waxa uu sheegay inuu ka argoosanayo. Haatanna waa reer Yurub iyo Mareykanka ay ka dhex tabatay. Marka waxaa adkaan doonta in la arko qof ka tirsan madaxda ururka midowga Yurub oo qabo aragtida madaxweyne Donald Trump ee ah in ganacsiga u dhexeeya Mareykanka iyo reer Yurub uusan ahayn mid cadaalad ku dhisan isla markaana isu dheelitirnayn. Reer Yurubna ay aad uga faa'iidaan marka loo eego Mareykanka. Sidoo kale waxaan taageero buuxda loo heli doonin in la yiraahdo dagaal dhanka ganacsiga ayaa fududaan doono oo waxay fududaan doonaa dal gooni ayaa ku guuleysan kara. Marka cid kasta waxa leeyahay waxay dareemi doontaa culayska. Madaxa golaha midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa sheegay in qaabka Mareykanka arrintan u wajahayo aysan caqli gal ahayn isla markaana taariikhda aan hore loogu arag, balse sidoo kale waxa uu caday in ururka midowga Yurub uusan xal kale hayn oo ahayn inuu ka argoosto tallaabada Mareykanka uu canshuuraha ugu soo rogay baayac mushtariga ka imaanaya dhanka reer Yurub. xasanow baayac mushtarigii dunidoo dhan ba haatan isku xidhan waxa haystaa Mareykan iyo Yurub ha ahaadaan. Dunida arrintani maxay uga dhigan tahay? Axmed, murankani waxa uu ka dhigan yahay in canshuuraha uu Trump soo rogay naxaasta iyo birta reer Yurub laga soo dhoofiyay 25% iyagana hadda ugu jawaabeen inuu yahay bilow isqa qabsi dhanka ganacsiga ku saabsan maadaama hore Mareykanka iyo Shiinaha ay soo haysteen. Waxaa sidoo kale ay ka dhigan tahay in qiimaha ay dadku ku iibsadaan waxyaabaha ama ka imaanaya Yurub ama ka imaanaya Mareykanka ama Shiinaha dhammaan uu sicir barar ku dhaca oo qiimaha uu aad u sarakaca ayna adag tahay in xal laga gaaro ilaa iyo heshiis in la helo. sidoo kale waxaad ogaantahay Axmedow go'aanka Trump ee canshuurta dheeraadka ugu soo rogay baayac mushtariga ka imaanaya Shiinaha iyo reer Yurub waxaa ka dhashay cabsi weyn oo dhanka ganacsiga suuqyada caalamka oo dhan oo ay sabeynayeen oo hoos u dhacaya ku yimid maalmahan. Marka waa dareemi kartaa cabsida laga qabo in dagaal dhanka ganacsiga oo dunida ka dhaca. Marka saameyntiisana ay gaari doonto dunidoo dhan aanu ku koobmi doonin Yurub iyo Mareykanka. Aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Cali Geele oo inoo faahfaahinayay go'aanka ay reer Yurub ka qaateen Mareykanka iyo badeecadihiisa uu dhoofiyaba. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee BBC bal aynu ku noqono wararkii Soomaalida. kalluumaysatada magaalada Kismaayo ayaa markii ugu horeysay bilaabay inay dhoofiyaan kalluunka ay ka soo jilaabtaan xeebaha magaalada kadib markii koox ganacsato ah oo gacan ka helayay hay-ado samafalahi ay ka hirgeliyeen meel aan sidaa uga fogeyn xeebta kawaan lagu qalo kalluunka ka hor inta aan loo qaadin dibadda. bishii March ee sanadkan ayay kalluunkii ugu horeeyay u iibgeeyeen magaalada Mombasa ee dalka Kenya kaasoo gaadhayay ilaa 47 tan. Sidoo kale waxay kalluunka oo qalan u qaadaan magaalooyinka kale ee Soomaaliya oo ay ku jirto caasimadda Muqdisho. Wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan oo dhawaan safar shaqo ku tagay Kismaayo ayaa warbixinta noo diyaariyay. kalluumaysatada reer Kismaayo waxay saacado badan ku jiraan badda si ay kalluun badan u soo jilaabtaan. Marka ay yimaadaan xeebta waxay bilaabaan inay doonta ka dejiyaan kalluunka si ay ugu wareejiyaan warshad yar oo laga hirgeliyay magaalada dabadeedna loo dhoofiyo. noocyada kalluunka ay soo jilaabtaan waxaa ka mid ah kalluunka qaaliga ah ee loo yaqaano kingfish ama taraaqad iyo nooca kale ee tuunaha. kalluumaysatada ayaa ku faraxsan inay helaan qaboojiyayaal iyo warshad kalluunkooda lagu hayo waqti badan si fursad loogu helo in meelo fogfog loo iibgeeyo. Mustafa Abdullaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada magaalada Kismaayo. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibka ay qabeen ka hor inta aanay helin warshadan yar ee lagu diyaariyo kalluunka dabadeedna la dhoofiyo. kalluunka awal hore badan ka soo saari jiray waxaan keeni jiray suuqa markaan keenno marar badan oo kalluunku markuu baddo ay saa'id u furanto oo kale waxaa dhici jirtay inaan meelaan ku keydsanno oon dhigno oo kalluunka haysa inaan weyno. waqtiyadii hore kalluun badan ayaa ka halaabi jiray sababo la xiriira inaanay heli karin goobo ay ku keydiyaan. halkan waa warshad yar oo lagu diyaariyo kalluunka ka hor inta aan la dhoofin. sanadkii hore ayaa la hirgeliyay laakiin kalluunkii ugu horeeyay ee halkan lagu habeeyay waxaa Mombasa loo dhoofiyay bishii 3 ee sanadkan. heerka qabowga ee kalluunka lagu keydiyo waa -40. ganacsatada warshadan yar ayaa sheegaysa in si weyn looga soo dhaweeyay suuqyada Mombasa kalluunka ay u iibgeeyeen sida uu Cabdiraxmaan Faarax Guuleed uu sheegayo. Kafishin waa meel kalluunka lagu diyaariyo oo aad nadaafadeeda iyo processingkeeda iyo qaabka kalluunka loo habaynayo dad professional ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo isbiirsaday ah
waanan ku guulaysanay insha Allah tacaala haddana rijo waxaan ka qabnaa in sidii la rabay aan u gaarno Mombasa markaan geynay maba la aaminsanaysaas inaan saas wax u diyaari karno ama u hagaaji karno maba la aaminsanaynba kan annaga aan soo diyaarinay waa kii ugu horreeyay kii badaha doonyaha kale ay qaadeen oo taagan iyo kii aan diyaarinoo nadiifka ah lagu qancay isla markiiba la qaatay 2 maalin gudahooda ku dhamaaday kalluunkii intaasoo tan ahaa warshadda waxaa sidoo kale lagu habeeyaa kalluunka la jarjaray ee loo diyaariyey in la dubo ama la kariyo taas oo loo iibgeeyo suuqyada magaalooyinka kale ee Soomaaliya finger kanoo kale waxaan ka jirnaa 10 nooc oo kalluun ah haddii sidan oo kale la kordhiyo warshadaha yaryar ee lagu kaydiyo kalluunka waxaa la rumaysan yahay in ka badan inta tan ee hadda la dhoofiyey in loo iibgeyn lahaa suuqyada gobolka taasoo dhaqaalaha wax badan kusoo kordhin lahayd ibraahim maxamed aadan BBC Kismaayo aad buu mahadsan yahay ibraahim maxamed aadan oo warbixinta magaalada Kismaayo ka soo diray haddaba dhageystayaasha BBC-da qaar ka mid ah ayaa iyaguna aragtidooda ka soo dhiibtay warkaasi waxaana ka mid ah axmed maxamed macaane oo jooga magaalada muqdisho waxaanu leeyahay waan soo dhoweynayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee dabadda u dhoofiyey kalluunka waana tallaabo hore loo qaaday dad badan oo kalluunka ka shaqeeyana dhiirigelin u ah waana in lagu garab istaagaa ganacsatadaasi sidii ay u sii wadi lahaayeen ganacsigooda ayuu yidhi axmed maxamed macaane cabdul barake oo jooga magaalada beledweyne ayaa isaguna waxa uu leeyahay kalluumaysatada dhoofisa kalluunku waan soo dhoweynayaa waayo haddii khayraadkeenna aan aragno hubaal inuu tahriibku yaraanayo ayuu yidhi halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee BBC-da wararka inoo soo socdana waxaa ka mid ah cudurka Rift Valley Fever oo la leeyahay waxa uu ka dilaacay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay dhegeystayaal bal wararka kale waynu u soo noqon doonaa ee haatan xagga iyo koonfurta Suudaan hogaamiyaha falaagada South Sudan ayaa la geyn doonaa dal dhexdhexaad ah arintaas oo qayb ka ah qorshe la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sokoye ee dalka ka socday 4 sanadood tan iyo markii uu ka cararay magaala madaxda Juba sanadkii 2016 waxa uu ku jiray xabsi guri ku yaala dalka Koonfur Afrika wadahadaladii nabadda ee dalka ay dariska yihiin ee Itoobiya uu mashaar foolka kula kulmay ninka ay hayaan ee madaxweyne Salva Kiir ayaa soo gabagaboobay iyadoo aan wax heshiis laga gaadhin Emmanuel Gunza ayaa warbixintan Addis Ababa ka soo diray Xasan Cali Geelle ayaa soo jeedinaya kadib 2 sano oo xabsi guri uu ku jiray ayaa hogaamiyaha falaagada Suudaanta Koonfureed Riek Machar waxaa dhici kartaa inuu si dhaqso ah xorriyad buuxda u helo laakiin u suurtagali maydo in haatan uu ku noqdo dalkiisa Suudaanta Koonfureed hogaamiyaasha gobolka ayaa waxa ay meel mariyeen qorshe Riek Machar lagu dejinayo dal kale oo ka baxsan gobolka Bariga Afrika isla markaana dhexdhexaad ka ah siyaasadda cakiran ee Suudaanta Koonfureed madaxweyne Salva Kiir ayaa isna dhankiisa sidoo kale waxa uu diiday hindisa ah in Riek Machar oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkiisii hore ay ka wada shaqeeyaan xukuumad ku meel gaar ah oo hadda kadib la dhisayo wadahadaladii nabadda ee 2 maalmood socday ayaa lagu furdaamin waayay ismaringwaaga taagan ee u dhaxeeya labada dhinac ee dagaalamaya oo mid waliba uusan weli ka dabcin mowqifkiisii marakudhega ahaa Stephen Colper oo ka mid ah ergada mucaaradka uga qayb galaysa wadahadalada ka dhacaya magaalada Addis Ababa ayaa dhinaca dawladda ku eedeeyay in colaadda xal laga gaari la yahay dabcan dhibaatadu waa mowqifka diidmada ah ee dawladda qaybaha kala gedisan ee siyaasadda dalka South Sudan waxay ka soo horjeedaan mowqifka dawladda oo aan macquul ahayn in nabad lagu helo tusaale ahaan marka laga hadlayo awood qaybsiga dawladdu waxay dalbanaysaa 80% xubnaha dawladda xitaa waxay diidan yihiin in ciidamada laga saaro magaalooyinka waaweyn arrintaas oo muhiim u ah nabadgelyada dadkayaga qaramada midoobay ayaa dadkayaga waxay hadda ka ilaalinaysaa dawladoodii wareegga labaad ee wadahadalada waxaa lagu qaban doonaa dalalka Suudaan iyo Kenya waxaana markii ugu horreysay lagaga hadli doonaa dhaqaalaha dalkaasi ee colaaddu ragaadisay wax soo saarkii saliidda ee dalkaasi uu hodanka ku yahay ayaa isaguna gabi ahaantiiba afka dhulka daray hase yeeshee dhexdhexaadiyaashu waxay ku handadeen hogaamiyaasha labada dhinac inay cunaqabateen ku soo rogi doonaan waa haddii ay xal ka gaari waayaan colaadda hase yeeshee wasiirka warfaafinta madaxweyne Salva Kiir Michael McQuay ayaa hanjabaadaasi ku gacan sayray
waa nasiib darro in hadalladaasi ka soo yeedhayaan hogaamiyayaashan sababtoo ah heshiiskan hadda la doonayo in la soo nooleeyo ayaa ahaa mid markiisa horebana lagu qasbay natiijadii ka dhalatayna waad og tahay oo waa musiibadaa ka dhacday gudaha dalkayaga South Sudan annagu ma doonayno inaannu mar kale qayb ka noqonno heshiis kale oo lagu qasbayo dadka South Sudan waxaan doonaynaa wax ay ku wada heshiis yihiin dhinacyada ishayaa si marka aanu dalka ku laabannaba aanu si dhab ah ugu dhaqangelinno tobanaan kun oo qof ayaa ku dhintay malaayiin kalena waa ay ku barakaceen intii uu socday dagaalkii dalkaasi Suudaanta koonfureed ka qarxay bishii Diseembar ee sanadkii 2013 mahadsanid geelle waa tahay haatana bal Kenya cudurka Rift Valley fever oo dhawaan ka dilaacay degmada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa waxa uu dhintay 6 qof ku dhawaad 70 kalena waa laga daweeyay cudurkan waxaa laga qaadaa hilibka xoolaha uu hayo oo la cuno maamulka ayaana mamnuucay in xoolo lagu qolo kawaanada Wajeer muddo 10 cisho haatanse shir ay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo maamulka degmadu yeesheen kadib ayaa la isla qaatay in xayiraadii hilibka xoolaha saareed lagu kordhiyo 14 cisho oo dheeraada cabdixakiin bilow nuur oo ah madaxa caafimaadka xoolaha ee Wajeer ayaa Axmed Badar uga warramay saameynta cudurkaas iyo tallaabooyinka maamulku kula tacaalayo ee haatan la qaaday shirka waxaa ka soo baxay in cudurkii ilaa 70 qof uu saameeyay dhimashadana weli ay 6 marayso oo ay kordhismin 70 qof oo uu saameeyna waa la daaweeyay xaafadooda ay qaarkood ku noqdeen qaarna isbitaalada ay weli joogaan waxaa kaloo jirta 56 neef xoolaha ayaa laga qaaday sample aricadka 22 neef ayaa dhiigooda la qaaday 6 baan laga arkay xanuunka Rift Valley fever idaha 10 neef ayaa sample laga qaaday 9 ayaa laga helay cudurka Rift Valley fever geela 15 neef oo geeli ayaa laga qaaday dhiiga 2 baa laga helay inay cudurka Rift Valley fever ay qabeen ama dhiigooda laga helay looda hal sample la qaaday sampleka asaga ayna waxba lagama helin marka waxaa la isku raacay dhammaan in xanuunkan uu weli ku jiro xoolaha dadkina ay weli xoolihii ay hadii kulley hilibkana waa la joojiyay laakiin dadka qaar qarsooniya iskaga qalanayaan ribaadiyaha la hilib lagama karaya marka waqtigii maadaama hadda uu ku eg yahay ma la kordhiyay waqtigii mamnuucidda in dadka aysan hilibka cunin oo kawaanada ay xiran yihiin maadaama xoolihii ay weli qabaan xanuunkii dadkina ay weli xanuunkii qaar ay qabaan waxaan go'aansanay in 14 bari oo kale lagu daro oo hilibka dadka laga mamnuuca waxaa kaloona isku afgaranay anagoo la kaashanayna wasaaradda xanaanada xoolaha in la xiro suuqa xoolaha oo xoolaha lagu kala gadanayo maxaa yeelay suuqa hadduu furan yahay waxaa suurtagal noqonaysa dadka in ay xoolaha kala gataan sidaa iidahana ay fududaynaysa in hilibkana uu suuqa sideeda ku galo marka laga soo tago in aad hilibka mamnuucdeen in la qasho xoolaha suuqyadana la xiro ma jiraan tillaabooyin kale oo wacyigelin ah oo aad qaadeen ilaa iyo imika nimanka kawaanada ka shaqeeyaan ayaan la shirnay ilaa dadka ugu horreysa ay saameynayso ayaga waxayna sugayeen 21 bishan in laga kor qaadi doono mamnuucidda laga mamnuucay qalitaanka xoolaha waxaan ku wada heshiinay in 14 haddana aan ku darna maadaama ay xoolihii weli ay xanuunsan yihiin waxaan samaynahaynaa oo kale wacyigelin oon samaynahaynaa oon dadka u sheegaynaa idaacadaha kuwa local FMskan ooga sheegaynaa qaabka loola dagaalami lahaa cudurkan Rift Valley fever wixii laga qaada iyo qaabkii qofka hadduu iska dareemo inuu cudurka asaga uu qabo waxa uu samayn lahaa idaacadaha ayaan ka sheegaynaa waxaa kaloo countiga Wajeer ay samaynaysaa kaneecada oo la yareeyo oo la buufiyo xaafadaha daabiya ay aad u saameysay waa la buufintana way sii socon doontaa waxaa kaloo la sameeyey wasaaradda xanaanada xoolaha waxaa kaloo samaysay waxay keentay daawo loogu talagalay xoolaha in la mariyo qaniinka siduu ay uga reebta ilaa kaneecada iyo qaniinkii waxaan baa u keenaya xoolaha xanuun wacyigelinta waxaad sheegtay inaad wadaan dadka miyiga ah ma gaarsiiseen wacyigelinta magaalada kale kama wadna wacyigelinta waxaan ka wadnaa ilaa subcountiska waxaa la aadaa ilaa degmooyinka hoose ayaa la tagaa meelaha qaar oo la gaari karin moogii badi waa la wada gaari meelaha network leena raadiyaha ka wada maqlaan baadiyahana kulli akhbaar way isu gudbinayaan marka waa loo sheegay dadweynaha reer Wajeer meel walba ay joogaan xanuunkan intuu khatartu leeyahay qaabkii looga hortagi lahaa iyo sidii loola dagaalami lahaa way ka warhayaan badidooda waxaa kaloo sameynay text message oo waxaa jira oo dadka badi u galayo oo soo diraysa Safaricom oo nooca cudurka lagu garanayo
xanuunka meeshuu kaa qabanaya sida madaxa kor xanuunka faraha badan ama marka qaar dhiig kaa imaanaya qaybaha duleelka bini'aadanka uu ka duleelo marka messageka asagana waagi walba oo barya dad badan u galaa oo kulley ka war helaan ayagana waa sii faafiyaan kaasi wuxuu ahaa cabdixakiim bilow nuur madaxa caafimaadka xoolaha ee degmada Wajeer oo warramayay Axmed Badar halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC da dhageystayaal bal haatan wararkii cayaaraha Faransiiska ayaa u gudbay wareegga labaad ee isreebreebka tartanka koobka adduunka kadib markii uu 1-0 kaga badiyay Peru oo ay ka wada tirsanaayeen gruupka C ciyaartii kale ee kooxaha gruupkaas ku wada jira iskaga hor yimaadeen ee la yaabka noqotay ayaa waxay ahayd tii ay gorodda isku dareen Argentina iyo Croatia oo guushu 3-0 ku raacday Croatia ciyaaraha galabta ilaa caawa dhici doona waxaa ka mid ah gruupka D oo ay Nigeria iyo Iceland iska hor iman doonaan iyo gruupka E oo ay fooda isku dari doonaan xulalka kale ah Serbia iyo Switzerland Brazil iyo Costa Rica halkaas oo xulka Brazil ku rajo weyn yahay in uu ciyaarta maanta safan doono xidigooda Neymar oo dhaawac hore ugu gaadhay lugta midig bishii February ka soo kabanayay muddadanba wararka kale ee naadiyada ku saabsanna waxaa ka mid ah in kooxda Borussia Dortmund ay aad u xiiseynayso in ay la soo wareegto weeraryahanka Chelsea Alvaro Morata waxaase wararku intaas ku darayaan inay suurtagal tahay in aanu ciyaaryahankaasi aqbalin qiimaha ay Dortmund ku doonayso oo ah 45 milyan oo giniga sterling ah waa tahay dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC da waa tahay dhageystayaal bal xagga ayaa Mareykanka aynu ku noqonay golaha sanadka Mareykanka ayaa meel mariyay qaraar ku saabsan arrimaha muslimiinta waddanka Mareykanka oo loogu damaanad qaaday xorriyadda ku dhaqanka diintooda Islaamka waxaana qaraarkaasi garowsanaya waxtarka ay dadka muslimiinta ay u leeyihiin bulshada Mareykanka qaraarka golahu meel mariyay waxaa golaha hor dhigtay Amy Klobuchar oo ah haweeney senator ah oo laga doorto gobolka Minnesota haddaba Siyaad Maxamuud Cali oo ah gudoomiyaha waxbarashada magaalada Minneapolis la taliyana oo ah senator Amy ayaa qaraarka uga warramay wariyaha BBC da Maxamed Xaaji Xuseen Shiine qaraarkan horta waxaa keenay senior senator Amy Klobuchar oo ka tirsan golaha sanadka una matasha gobolka Minnesota waxa uu aqoonsanayaa xorriyadda buuxda ee dadka muslimiinta ah ee Mareykanka ku nool ay u leeyihiin inay xor u yihiin diintooda wuxuu kaloo aqoonsanayaa waxa ay ku soo kordhiyeen wanaagga muslimiintu guud ahaan dalkan kan Mareykanka sida dastuurkuba uu qabo in qof kasta xaq u leeyahay inuu diintiisa xor u yahay uu ilaahay caabudo oo diintiisa inuu ku dhaqmo qof kasta uu xor u yahay sidaas baa haddana dadka muslimiinta iyaguna ay xorriyaddaas oo kale u leeyihiin wuxuu kale oo uu leeyahay ama ka digayaa inaanay marna suurtagal ahayn in qof loo eego diintiisa inaanay marnaba noqonin in qofka diintiisa lagu cadaadiyo ama lagu xaqseejiyo maxaa keenay in qaraarkan hadda uu soo saaro oo senatarada reer Minnesota ay geeyaan golaha sanadka runtii sidaad ka warqabtid waxyaabo fara badan baa jira oo la ogyahay Mareykanka culaysyaa jira dadka muslimiinta soo wajahay oo aad ogtahay nacayb inuu jiro laakiin nuxurka ugu muhiimsan waxa weeye tani in dadweynaha ay dee golaha sanadku ama golaha baarlamaanku ay ummadda iyaga ka wakiila marka waa muhiim mar walba inay maaragtay xaqiijiyaan baraarujiyaan sharciga dadka ay xasuusiyaan qaraarkan tusaalahaan wuxuu leeyahay dadka muslimiinta ah kuwooda soo galetiga immigrant-ka ah iyo kuwa halkan ku dhashay iyo dad ka soo kala jeeda muslimiintu asalada yacni quruumo badan weeye muslimku oo dad maaha hal dal ka wada yimaad adduunka o dhan bay ka wada yimaadeen ama asal ahaan ka soo wada jeedaan dad baa halkan jira maaragtay 100 sano deganaa dad ka badan waxaa la sheegaa 3 milyan oo muslimiin inay Mareykanka ku nool yihiin in xuquuqdoodu ay tahay lama taabtaan inay yihiin dad dalka kan waxtar badan ku soo siyaadiyey ciidamada qalabka sida hadda ay ka mid yihiin in ka badan 5,000 inay yihiin dad aqoon-yahano ah oo khubro ah leeyihiin oo cilmiga sayniska iyo caafimaadka iyo injineerinka iyo cilmiyada kaleba ku sameeyey horumar xadaafa oo maanta Mareykanku uu ka faa'iido oo qof kastoo Mareykana oo anfacay muxuu qaraarkani dadka muslimiinta marka sidaas la yiri muxuu u tarayaa
wuxuu u tarayaa runtii dee waa sharaf weyn weeye waa aqoonsi weyn weeye waxa weeye waa marakac weyn buu yahay muslimiinta wuxuu markhaati furayaa inay muslimiintu yihiin dalkani dalkoodii inay dalkan wax badan ku soo siyaadiyeen inaanay dalkan marti ku ahayn dalku inuu yahay dalkoodii waxyaabaha nacaybka ah ee jirana aanay ka turjumayn aragtida golaha baarlamaanka ama sanadka maraykanka wuxuu kale oo xaqiijinayaa qof kasta oo humaa kaga jiray ama mugdi kaga jiray ama ismoodsiinayey ama nacaybba hadduu doono iskiiba ha ahaado ama wax kaleba ha ku abuuraane in dadka kani ay ku taagan yihiin yacni jirridda adag inay ku taagan yihiin oo asaasna uu yahay dastuurka dalka siyaad maxamuud cali oo shiina u warramayay ayuu kaasi ahaay bal haatan aynu afrika ku noqonay boqolaal beeraley caddaan ah ayaa laga qaaday beerihii ay ku lahaayeen zimbabwe markii uu socday ololihii uu bilaabay robert mugabe horaantii sanadkii 2000 taas oo keentay inuu dumo dhaqaalaha duniduna ay godoomiso dalkaasi laakiin haatan mugabe dalka kama taliyo waxaana xukunka lagaga tuuray afgembigii dhacay bishii Noofembar ee sanadkii hore waxaana haatan socda isku dayo lagu doonayo in magdhow lagu siiyo beeraleyda caddaanka ee dhulka laga qaaday oo haatan la damacsan yahay in dhulbeereed lagu siiyo heshiis mudaysan Fergal Kane ayaa warbixintan soo diray Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa soo jeedinaya I'm Rob Smart. I was born on this farm, so I've been here all my life. Magacaygu waa Rob Smart. Waxaan ku dhashay beertan dhexdeeda. Weligayna halkan ayaan ku noolaa. I'm Darren Smart, likewise born on this farm. Ku dhawaad sanad ayaa laga joogaa markii Robert Smart iyo Dairy Smart iyo qoyskooda laga qaaday beertooda oo ku taal meel u jirta 2 saac iyo bariga magaalada caasimadda ah ee Harare. Soo noqoshadooda kadib waxay aad ugu faraxsan yihiin afgambigii soo afjaray xukunkii madaxweyne Robert Mugabe. It was a wonderful feeling getting back home. Waa dareen la yaab leh in aad gurigaaga dib ugu soo laabato balse maxay kugu taala halkani wax yaalla ma jiraan waa inaad wax kasta dib u soo bilowdaa hase ahaatee wax wanaagsan ayaa rajaynaynaa. Yeah, I'm very optimistic. haddaba waxaan kaabiga ku hayaa dhismayaasha ugu waaweyn ee beeraha waa subax axad ah beeralaydu cadceedda ayay ku diirsanayaan waxaa ka muuqata nasasho iyo farxad ma xasuusto goorii ugu dambaysay beeraha Zimbabwe saan isleeyahay ku dhowaad 15 sano ayaa ka soo wareegtay arrinta mar kasta ka taagan dalkan taariikh ahaan ayaa ah arrinta la xiriirta dhulka haddaba qofku muxuu dareemi karaa marka qof dariskiisa ah uu beer leeyahay asna aanu lahayn dabcan cara ayuu dareemi karaa Tirimo oo ah kormeero guud oo muddo dheer halkan ka shaqaynayay ayaa qaba in ugu horeynba dadka la tababaro dabadeedna dhul kooban la siiyo. We want the land to be distributed equally but waxaan doonaynaa in dhulka loo qaybiyo si isla eg maxaase ka faa'iidaya haddii dhul la isiiyo oo aan haysan qalabkii iyo khayraadkii aan u adeegsan lahaa run ahaantii waxaa wanaagsan in dadka la tababaro haddii tusaale ahaan 1 hektar la isiiyo waan maarayn karaa. degmada Petrich waxay ku taal meel 30 kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada Harare waa halka ay ka bilowdeen rabshadaha ballaaran ee looga soo horjeedo beeraleyda caddaanka ah waxaana halkaas lagu dilay 2 ka mid ah beeraleyda caddaanka ah Mahia waxa uu rumaysan yahay in taageerayaasha Mugabe ay duulaan ba'an ku soo qaadeen dhulka asaguna uu dhibano u noqday arrintaas wuxuu dhanka kale rumaysan yahay in dadka caddaanka ah iyo kuwa madow ay si wada jir ah wada shaqaystaan. It was not supposed to be removing the white men. Ma ahan in dhammaan dadka caddaanka ah laga saaro dhulka. dadka caddaanka ah waxaa laga doonayaa in ay aqbalaan in ay si wada jir ah ula shaqaystaan dadka madowga ah oo markaasi ay wadaagaan khayraadkan muhiimka ah waa inaan isku waafaqnaa waa inay noqotaa waajib aan isdhaarsanno midba midkeenna kale oo aan isku raacnaa in aan mar kale noqonno dad wada jira. dowladdu waxa ay bixinaysaa oo ay beeraleyda siinaysaa qandaraas soconaya 99 sano oo ay ku milkin karaan dhulka. Robert Smart waa uu soo dhaweynayaa arrintaas balse dhammaan beeraleyda caddaanka ahi kalsooni kuma wada qabaan caqabadda ugu weyn ee haysata Zimbabwe ayaa ah sidii ay u tababari lahayd oo ay u qalabayn lahayd jiil cusub oo ah beeraley madow kuwaas oo sare u soo qaadi kara dhaqaalaha dal ay daashadeen musuqmaasuq iyo maamul xumo. warbixintaas ayaananu ku soo gabagabay